السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ودooyinka kala duwan ama qaababka kala nooca ah ee laga yaabo dumarka qaarkood inay u fitneeyaan ama u ibtileeyaan ragga qaarkood, taasoo rasuulka Ilaahay uu nooga warramay calayhi salaatu wasalaam, ayaanu idiin soo gudbinaynaa ama idinla wadaagaynaa walaalayaal. rasuulka Ilaahay waxaa laga wariyay calayhi salaatu wasalaam inuu noo sheegay reer bani Israa'iil oo ka mid ah ummadaha kuwa qisaska iyo dhacdooyinka kala duwan ugu badan. haweeneydan oo ka tirsan bani Israa'iil waxay haweeneyda mid gaaban maalin maalmaha ka mid waxay soo raacday laba haweeney oo dhaadheer si ay u gaarto dheerarkooda. waxay soo qaadatay kaba dheer oo laga sameeyey geed iyo faraanti dahab ah kaasoo la isku sameeyey. faraantigana waxay ka soo buuxisay miskiga bahalka loo yaqaan, bimacnaa caraf saa'ida. labada haween dhexdooda ayay soo socotaa, yacni labada haweenee dheerdheera ayay dhexdooda socotaa. dadku labadan ay arkayaan laakiin oo ay yaqaanaan ayada garan mayaan. labada haweeney dhexdooda socota ayay qacanta sidaa tiraahdaa, sida bimacnaa ragga ay u soo jiidato oo balis tiraahdo kuwaan yayse arkin adigaa ku arkeen caraftan iyo kabahan dhaadheer aad qabtid daraaddood. riwaayad kale waxay tilmaantay mar allaana markay soo marto meel la fadhiyo ama rag fadhiyaan ama dad fadhiyaan, carafteeday furi jirta si ay u dareemaanoo sankooda iyo dareemayaashooda usoo jiidato. waxayna u jeedaa si dadka meesha fadhiya ay u fitnayso. tartan waxay kula jirtaa labada haween ee dheerdheer. nabiyullaahi maxamedna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, reer bani israa'iil wuxuu ugu horreeyey ee sabab u noqday in la halaago waxay ahayd haweeney faqiirad ahayd, yacni waxba aan haysan, oo dhar samaynta iyo dahab samaynta iyo shaqada lagu kallifo aad iyo aad weliba awooddeeda wax ka baxsan. waxaana arrintaasi amri jirtay oo ku kallifi jirtay haweeney qani ahayd, bimacnaa tanaad ahayd. qisadaa markuu rasuulka Ilaahay ka sheekeeyey wuxuu ku daray, waxaa reer bani Israa'iil ka mid ahaa haweeney gaaban si ay isu dheerarayso ragga usoo jiidato ayaa waxay samaysatay kaba dheerdheer oo geed laga sameeyey. carabta isku soo shubi jirtay, kadibna waxay dhex socon jirtay laba haween oo dheerdheer ama buuran ama jir leh. haweenkaasoo ujeeddadoodu ay tahay inay soo jiitaan ragga waddada maraya. xagga labiska iyo qaab socod ay laafiyoonayaan. waana miduu nebi maxamed leeyahy calayhi salaatu wasalaam, fitno reer bani israa'iil lagu halaagay wixii ugu horreeyay waxay ka imaatay waxa weeye xagga dumarka, bimacnaa markay ku fitnoomeen xagga labiska kheyradin ay ka dhammaatay raggii. qisooyinka noocan wuxuu rasuulka Ilaahay noogu sheegaya calayhi salaatu wasalaam waxa weeye wuxuu la doonayaa bulshada muslimiinta ah inay ficilada noocaana ka digtoonoodaan oo iska ilaaliyaan aafooyinkan. wuxuuna rasuulku sala allahu calayhi wasalam noo iftiiminayaa qofku kor iyo hoos inuu ka nadiif noqdo dhaqamada xunxun iyo akhlaaq xumada, akhlaaqdiisuna wanaajiyo. waayo qofku qiimo kuma lahan ilaa akhlaaqdiisa sarraysa iyo ficilkiisa wanaagsan mooyaane. sidaa darteed baa nebi maxamed wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuusan ilaahay qofka ka fiirin xagga jirka iyo muuqaalka, siaad u labisan tahay iyo qaabkaad u soconaysid, inuusan ilaahay kaa fiirinayn ousan waxba kugu siinayn, laakiin qalbiga iyo camalkaad qabanaysid ayaa janno ku kasbanaysaa iyo wanaag, ama cadaab iyo xumaan kuu soo jiidaya. qisooyinka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee reer bani israa'iil uu nooga sheegayo wuxuu noogu sheegay waxa calayhi salaatu wasalaam fitnada iyo aafada dumarka qaarkood ay fitneeyaan bulshada inta ay la eg tahay iyo qaababkay dadka u dhumiyaan oo ay u soo jiitaan indhaha ragga dacfigu haysto, kuwaasoo akhlaaqdooda hoos u dhacday, sharaftoodii iyo dhowrsanaantoodiina meesha ay ka baxday, taasoo ay sabab u tahay hinaaskii iyo kiiradii oo ka baxay qulubta ama qalbiga qofka ragga ah. waayo taa waxay gaarsiinaysaa qofka xumaantii laga cabsanayay inuu ku dhaco. xagga labiska iyo carafta iyo dharka qeybihiisa kala duwan ee lasoo xiranayo iyo waxaan la marsanayo, waxyaalahan dhan waxay ka qayb qaadanayaan qofku inuu asagu imaa inuu fitnoomo wa imaa in lagu fitnoomo. mid wey fasaad iyo shar dhammaantiisba rabbi hanaga hayo. iska daa wax asalkiisoo shaki ku jiree wixii xalaasha ahaa ama mubaaxa ahaa haddaad ka badbadisid ayaa wuxuu isu bedelayaa shay laga fiican yahay ama xaaraam noqonay. waxyaalahan laysmariyo dumarku isticmaalaa, mayka abka iyo waxyaalaha la midka iyo ismiidaajka iyo waxaa la midka, waxaasoo dhan xuduudda in la dhaafiyan looma baahna oo loo marsado ama loo labisto ama laysku qurxiyo ama jirkaada u muujinaysid si nin aad u soo jiidan lahayd indhihiis, ka-annamaa aad moodidba inaad isbeecinaysid ama jirkaadii aad xaraashaysid iyo muuqaalkaadii. taasna looma baahna. waa midda ilaahay ku halaagay reer bani israa'iil laguna baabi'iyey, ay ku noqdeen dadka ugu qisaska badan iyo dhacdooyinka badan markay khilaafeen amarka ilaahay. taasi aynu iska ilaalina insha allah.
haddaad ka mid tahay dadka si fiican noola socda aad iyo aad baan ugu faraxsannahay la jirkaada. haddii aad tahay markii ugu horraysay inaadna dhegaysanaysid oona daawanaysidna ha hilmaamin inaad channelka ku soo biirtid oo sabskrayb tirahdid si aad u heshid wixii cusub wakhtiga uu soo dhaco kuwii horena aad oo la socotid.